maanta barnaamijkan wax ku soo qaadan doona xaqiiqooyin ku saabsan waddanka Hindiya oo isla markaana aad ka ogeen laga yaabo inaad ogeynda daawad intaana bilowin muuqaalkeena fadlan dadka cusub channelkeena subscribe si like tana saar ku soo dhawo barnaamijkeena oo fidsan ku soo dhawo channelkeena Xamza Chowkhane subscribe like tana saar si ku soo gaadha muuqaalo kale oo badan dakhliga Hindiya badankoodu wuxuu ka yar yahay $2 maalintii sidaas darteed 30% dadka Hindiyaanku waxay ku nool yihiin xad ka hooseeya faqriinimada laakiin degdegin usaas ku xukumin waxa Hindiya laga helaa 1 milyan oo qof oo mid kasta haysto $1 milyan luqadda laga hadlo Hindiya ma hateeda saxda ah laakiin waa mid kamid ah luqadaha lagu hadlo Hindiya haddana iyadoo saas ah way ku faraxsan yihiin inay ku hadlin luqadooda waxaana magaalooyinka ku faraxsan kamid ah Chennai ku dhawaad 100% Hindiya dadka ku nool ma la musqulo waxaana ku xaja gutaan wadooyinka waxaana noqotay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xal loo waayay sida si xal loogu helo waxa lagu dhajiyay gidaarada waxyaabaha cabudaan si ay uga fogaadaan sidoo kale Hindiya waxay leedahay dad ka shaqeeya labada qof ee iskuursanaya taariikhdooda dadkaas oo qaar lagu kalsoon yahay xogaha soo bandhigayaan mana naqaano sababta ay u dibagalayaan dadka iskuursanaya USB-ga maanta ku isticmaala moobiladeena waxa ikhtiraacay Hindiya oo sita dhalasho Mareykan ah sidoo kale magaca shampoo waa magac ka soo jeeda Hindiya ma sheegano sameyntiisa iyo ikhtiraacdiisa laakiin magaca laftarkiisa ayaa magac Hindiya waa halka ugu badan ee laga soo saaro cambalafka sidoo kale waa halka ugu badan ee laga cuno cambalafka farxadooda ugu weyn waa waqtiga jilaalka oo waqtiga soo go'o Hindiya waxay leedahay goobo gaar ah oo lagu meero murudiyaasha isla markaana lagu masaajeeyo waana goobo xulan oo u qaas ah murudiyaasha Hindiya waxa jooga dad badan oo cuna khudaarta iyo caleemaha oo isla markaana culin hilibka xoolaha taasna waxa ku sabab diimaha aaminsan yihiin waxaana ku tilmaamaa inay yihiin 20% in halkaas laga helo 3 dhaqaatiir caadiyan waa wax iska caadiya laakiin qoyskan Jambuur waxay leeyihiin 5 dhaqaatiir oo dumar ah iyo 7 dhaqaatiir oo indhaha ah dhakhtar oo dhagaha iyo cunaha ah yaqaan lafaha ku takhasusay yaqaan iyaguna barta cilmi nafsiga kooda ugu yarna waxa la sheegay inuu isna ku jiro barashada sayniska iyadoo lagu fogaanayo wasakhaynta dhulka iyo hawada kuwa aaminsan diinta majuusiyadda ma dugaan dadkooda dhinta balse waxay geeyaan dhismo loo yaqaan dhismi aamusna iyagoo kaga soo tagay agtooda cunto marka dhow baabahan jirkoodina isla lafahooda ay ku dhisaan dhismaha aamusan haddii dadka qaar isfahmi waayeen 4 qof ama 5 qof oo isla markaa isfahmi waayeen magaalada Toncho ee ku taal Hindiya waxa laga helay qoys ka kooban 180 qof waana 39 xaas 49 wiil 14 garbood iyo 3 qof oo ay sii dhalaan waxa Hindiya laga helaa 1 milyan iyo bar qof oo ka shaqeeya shaqada boostada waxaana saas ay ku noqotay shirkadda boostada ee ugu weyn adduunka Hindiya waa halka ugu badan ee laga soo saaro basbaaska iyo waxyaabaha kale ee kulul ugu dambeyn Hindiya waxa laga helaa halaburada ugu cajiibsan adduunka sida buundada Badra Mundi waana buundadii ugu horeysay dul marta badda iyadoo ag marta 8 xaafadood waxaana sideed ka qayb qaatay injineerada ugu fiican Hindiya iyo Ingiriiska Shiinaha Canada Masar iyo Indonesia haddaba daawade muuqaalkan ku soo koobi karmayno cajaa'ibta ay leedahay waddanka Hindiya laakiin inta yar kooban ayaan barnaamijkan ku soo qaadanay sidoo kale waxaad ka faa'iiday waxaad kaga kordhay portal committee-ga nagu reeb intaas ay maanta nugu barnaamijkan inta ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamida waxaan naga tegnaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamza Chowkhane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh